انت marka laga yiraahdo anigu marka hore hadal badan maan tamacsanay laakiin waxaan rabaa wixii aan goobjoog u ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal inaan saddex wax ka ilaahdo horta xagga wasiirada to anigu cawaawan yar yaabayo waxaan arkay inaan daadii xagga hore soo maray markaan arkay dad taariikhi iskeelooda dhex galeenoo muxuu ahaa soo wala iskaba socda caawan jeclay gooyis ducaaleeyo xali gurayo maxamed baaruud caliyo ragaasi inay caawa joogaan si taariikhiisii live ka ahay looga warramo marka inta xilka haysta ee madaxweyne muuse oo horeeyay maxamed kaahin iyo laga tago wasiirada waxaa ka mid ahaa cabdilaahi maxamed ducaale wasiirka la yiraahdaa mabuu dhicin xilligii cigaal wasiirka maaliyaddu ka bilaabay qorshayntuu noqday wuxuu noqday wasiirka mataqaanaa civil aviationka isagoo warbaahinta joogaabaa riyaala qabsaday markuu riyaala qabsadayna arrimaha dibadda buu noqday xilligii riyaala markuu waqtigiisii dhamaystay ee siiraanyo ayuu horta walaal ka tegay waxaa kala mid ah cabdilaahi darawal ninka la yidhaah waxaa ka mid ah muxuu ahaa ragga daan weligiiba dhicin oo maran la yidhaayo professora oo isna reer goormaaha dee ragga saas aniga lafteedu ka xusuusta ka mid ahaa waxaan haddama rabaa saddex arrimood inaan idin yar iftiimiyo anigu shirkii boormaan ku baranay annagoo hanfiyo ka asaasayna waxaanu ahayn dhallinyaradii markaa shirka ka shaqaynaysay kaasi waa qodob arrinta professor ka hadlay DDR-ka anigu goobjoog baan ka hayno dadkii boorarkii stadiumka la geynayay qoray hay'adda hafiyooka ee hubka dhigista ayaana haddaad aragtaan dokumentariga xisbiga soo bandhigana carruurta waa loo laaday markii hargeysa la socdo mataqaanaa baanboy tumise baanboy may jirine hafiyooka markaanu hayn ayaanu carruur diraysan xubnaha abaabin guulada difaacow anigu markii aan madaxtooyada chief protocol-kii dowladda siraayn noqday waxaan baaray arkiifyadii waxaanan waraystay inaan taariikh caawa la sheekaynayaa qoladii joogtay halkaa laba magac dhabeen waxay yidhaahdeen miisaaniyadda dowladda weligii allihii xataa bajetkiisa shilin muu dhaafin manuu abiiskarayn laakiin dadka kale lacagta uu ka soo shaqaado madaxda kale tujaarta kale maxayga kale waxa kale ayuu wax koodi jiray ereygaasi waa fact and figures anigaana waa habeen shuwaale arrintaasi idinka damaanad qaadaya waxaana ii sheegay ninkii xisaabaadkiisa gacanta ku hayay ilaa taariikh waa laga sheekeeyaa wuxuu yidhi weligii allihii lacagta bajetkiisa xataa isagu leeyahay shilin muu dhaafi jiray waxaan rabaa inaan idiin sheego markii siyaad bahar noolaa ee laga horta wuxuu noqday wasiirkii warbaahinta Soomaaliya waxa uu noqday prime ministerkii hore dowladda Soomaaliya markii la afgambiyeyna Allah in xasan ka waraabiyay isagoo dibadda ku maqan iskama baxsan oo ku soo noqday wadanka waa la xidhay waxa uu noqday markii dambe muxuu ahaa chamber of commerce ayaa siyaad bahar u dhiibay waxaana laga dhigay safiirka India markii soo gal wadanka lagu yiri kama baxsanay wadanka ayuu 1990 xilligay ugu adkeyd Soomaaliya burburisay hadda taariikhda eegtaan manifesto uu qoray ee uu siyaad bahro laga baqanayo kuuri wadanku baaba'aya Soomaaliya waxa aad yeeshaa talooyinkuu bixiyay waxay haayeen wixii wada dhacay oo dhan uu lahaa siyaad bahro wadanku nabada iskaga tagtaar soo shima dhacay waayahay professor ambassador-ka aad waxaad nashin garisay qodob fiican maxamed saxnuun former ambassador ama special envoy Soomaaliya bariga Budrbus qaali soo magacaabay in cigaal isku fikrad bay noqdeen ilaa wayna taariikhda dheer laga faa'iideeyay waxaana isku fikrad u noqdeen geeska Afrika Soomaaliya waxa imika la building blocks ayuu Soomaaliya waxa lagu nabadayn karaa in qolo waliba geesteeda hoosta wax ka soo dhisaan Budrus qaali oo markaa xogeeyay guud qaramada midoobay arrintaas uu ka soo horjeestay maxamed saxnuun uu isku casilay maxamed saxnuun dabeeto after muddo intee leeg baa Soomaaliya geeska Afrika loo soo noqday in la yiraahdo Puntland macni koonfurta qolo walba hoosteeda ha laga soo nabadayo waxaan waliba rabaa caawada waxay naga maqan ninka la yiraahdo Xasan Cabdi Madare the real information of cigaal ma qorna taasna waxa laga heli lahaa arkiifyada waxa waa ninka ugu communication ka badan warqad baan ku arkay madaxtooyada uu leeyahay uu qoriyay mataqaan UN oo uu leeyahay dawr wax yar baan faa'iideynaa iska daahay ma wadayahay wuxuu yiri Soomaaliya noqon mayso battlefield ay Eritrea Ethiopia isku dilaan hadda ismay dilin ogaada markii aan haafiyo ka Ethiopia tagayna laba nod diblomaasiyiin oo la kulmay arrimaha dibadda waxay u yiraahdeen such a leader cigaal
geeskan Afrika soo mari maayo talooyinkii uu prime minister ma la siiyay waxay noqotay in muddo intee lagu soo noqdo waxaan rabaa inaan idin sheego arrinta DDR ka hubka dhigista oo aniga laftigeedu conflict solution ka aanu tagay Australia iyo mataqaan accord center South Africa ilaa cilmiga ka hadlaynaaye labadaba waraaqihiisi baa yaala waxaan markaa halkaa ku daray professor iyo muxuu ahaa ambassador waqada qorayba arrinta la yiraahdo conflict resolution kana waxay noqonaysaa beej aanu cilmiyan ka qorno sideeba dad isdilay loo heshiisiyaa takalna waxa weeyaan sida scrap of government loo dhisaa adnaan waxaan rabaa inaan kuu sheego anu markaa waan joogo cadaaladdan iyo waxaad sheegaysaan waa marka la dhargo anagu waxaan ku fikiri jirnay tolo nabad ma la helayaa ila wala wixii baa laga sheekayaa tolo horta nabadu ma la helayaa Cabduraaba Ingiriiska tago waxa la weydiiyay cadaaladii waxa saafin Cabduraaba wuxuu yiri war dadkii haddaan barnaamijka station isla tagaan oo iskateeyaan waaba ahlu weyne marka hore suuqa bal isku dhex dili jiray halkee laga hadlayaa marka walaalayaal governance-ka iyo dawladnimada iyo iskaraafka waxa weyn baanu ka tagay cigaal taariikhiisa iyo Soomaaliland taariikheeda waxaan aaminsanahay in mar waqtiyada kamida adduunku uu qaadan doono wax la barto waana salaamantiin maxad kan muxuu ahaa library-gan aad baan